inta kala duwan ee maanta wafdigii la socday iyo mas'uuliyiintii kale ee gobolka iyo degmada iyo ganacsatada halka joogtay runtii waxa farxad weyn noo ah safarkii aan ku mareynay dhammaan qaybo kamid ah gobolka Mudug in maanta aan joogno magaalada Garacad iyo dekadii Garacad oo kamid ah mashaariicaha ugu waaweyn ee Puntland ka socda ama ka hirgalay runtii Garacad iyo degmada Jarriban waxay nasiib u yeelatay mashaariic waaweyn oo mustaqbali ah oo runtii ka wada dhashay dekedan oo loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dadka reer Puntland iyo geeska Afrikaba inay u noqoto faa'iido dhaqaale iyo meel badeecadaha geeska Afrika kana baxaan kana soo degaan u socda marka in dekadii maanta ay heshay jambiyo ama meelo ay maraakiib ku xiran karaan aadka u waaweyn dekedan waxay kaga duwan tahay dekadaha kale waa dekadad istiraatiiji ah oo loogu talagalay badeecadaha aadka u waaweyn inay ka degaan balkiga la yiraahdo hadday shidaal noqon lahayd hadday maaragtay cunto noqon lahayd hadday noqon lahayd waxyaabo kaleeto wax walba oo waaweyn inay ka degaan capacity-gaas inay qaadi karto marka runtii shirkadda wadaagsan iyo TTN oo fulinaysay iyo dhammaan dadka hantiilayaasha ama shareska ku leh iyo dawlad ahaanba wax la isugu tagay weeye oo dadaal lagu bixiyay sharaf weyn u tahay dawladda Puntland iyo dadkeeda oo runtii mashruucan ilaa iyo hadda hantidooda kaliya ku jirto ama hanti dawladeed iyo hanti shacabka reer Puntland iyo dad Soomaaliyeed oo wuxuu ku darsaday laakiin waxaan rajaynaynaa mashruucan markuu sidaa noqdo in la heli doono shirkado kale oo ajnabi ah iyagana qayb ka qaata haddii ahaan suuqgeynta haddii ahaan lahayd isticmaalka ay isticmaalayaan haddii ahaan lahayd ganacsiga qofna lagama maarmo dalna lagama maarmo dadna lagama maarmo marka dadku u adeegaa dadka u adeegay ama dad gaadiid badeed wata ha noqdo ama dad badeecad wata ha noqdo ama dad wax dhoofinaya ama dad wax soo dejinaya ha noqdo runtii waxa weeye waa wax cid walba u furan weey ganacsigu waxa la rabaa inuu cid walba u furnaado xuduud uusan lahayn marka dekedan cid kastay u furan tahay inay ka adeegato runtii una adeegto oo mashaariicaha gaarka ay ka fushan karaan oo dhaadheer waxaan uga mahadcelinayaa halka dekedan inkastoo ay hooyadii ahayd labada mashruuc ee kalluumaysiga iyo maxjarrada saldhigga u noqday iyagana markay dekedan heleen inay iyaguna hamigooda uu noqday inay iyagana halka mashaariicda ka sameeyaan iyo kuwa badan oo soo socda dabcan qodobka hadda noo yaala waa wadada isku xiraysa Garacad iyo Ethiopia oo runtii ah meesha manfadka ama meesha badeecadeenu ama ka baxaysa ama ka soo gali doonto Turdubi iyadana waxa socda shaqo aad u badan dabcan dadku mararka qaarkood waxa laga yaabaa shaqooyin waaweyn inay u arkaan laakiin qofkii jooga maalintan dhagax ku tuurinay maanta wuxuu garan karaa wixii rag u tashado rabbina u aqbalo inay hirgeli karaan waxa hadda dhiman wax aad u yar weey marka loo fiiriyo mashruuca asalkiisi oo maanta gabagaba ah runtii hadda intuu sharaxayo warsame oo labadan birti ah ama labadan jambi ah waxa kale aad jira laba jambi horeeto A iyo B ah oo horay markii aan fureynay u dhamaaday iyo waxyaabo kale soo socda marka fariinteed ugu muhiimsan waxa weeye dadka reer Puntland iyo dadka reer Mudug mashruucan haduusan deganaan iyo amni helin ma shaqeyn karo dhagax badda lagu rido noqonaya macna yeelan maayo marka waxaan u baahanahay inaan nabadgelyadeena iyo xasiloonideena inaan xoog saarno oo dhaqankii markaad aan waxba haysan waxba naga daadan maayo ragii oran jiray xisaabta hadda waxba naga daadanaa in la beddelaa rabaa sababtoo ah waayadii horeeto ama siyaasada haato ama dagaalada haatee ninka wuxuu dhihi jiray maxba iga daadan maayo wuxuu rabo iska sameyn jiray maanta haddaan wax yar sameeyno inaan soo kabanno way adkaanaysaa oo maxaa yeelay waxaan anagu u wadnaa in adduunku halka yimaado ajaanibtu yimaadaan maal gashtaan ka shaqaystaan marka arintaas mas'uuliyad dawladeed kaliya maaha oo dawladda dadku waxay u yaqaanaan dadka hay'adaha dawladda ka shaqeeya waa mas'uuliyad ummadeed dadka Soomaaliyeed positionku rabaha ku jiro waxa la rabaa qaybtiisa inuu qaato ama ganacsada ha ahaado ama gabar ha ahaado dumarka ha ahaadaan ama dhalinyarada ha ahaadaan ama odayaasha dhaqanka dabcan siyaasaddu hoggaan bay u tahay hadduu hoggaanku fiicnaado dadkiisana way fiicnaan doonaan marka iyadana inaan ku dadaalno runtii dadkii halka u soo dhabar adeegay oo shirkadda wadaagsan iyo shirkadda TTN oo runtii
wax duruufo aad u qalafsan ku shaqaysay kuna sabartay iyadoo ay ragga Soomaaliyeed shirkadaas ka mid ah ay runtii hadafkooda uusan ahayn ribix laakiin uu ahaa inay mashruucan ambition kale inay hirgeliyaan runtii ana aad baan ugu faraxsanahay in uu jambigii D uu dhamaaday C uu dhamaaday Dina hadda wax yar ka dhiman yihiinba maalintii hadda safarkii ugu dambeysay kan hadda la leeyahay waa dhamaaday sidaan waa u ka liitay markaas dhagaxda waaweyn lagu guray maantana waa dhamaaday marka insha Allah safarka dabana waxaan rajaynayaa aan imaado waxaanu dhamaaday dekada waxyaabaha infrastructure-ka asaasiga ah dhamaaday baan rajaynaynaa hadafka imaanshaheena waxa weeye inaan caalamka tusino inay dekada Garacad shaqaynayso aaminna tahay marka in lagu soo dhiiradaan rabnaa oo laga shaqaysto oo loo yimaado dawladda Puntlandna waa ay ku filan tahay amniga deegaanadeeda bad iyo bariba ilaahay dhankiis waxyaabaha yar yar ee la damacsan yahay sumcadilka in Puntland lagu sameeyana qorshe adag baan ka leenahay hadii ilaahay idmo waynu arkaynaa bilaha soo socda in waxaas wax lagu diimay noqdaan hadii ilaahay idmo dhalinyaradeenna meelaha kale laga soo abaabulayo oo waxa laga dan leeyahay aan loo sheegeen in dhadhamo iyo lacag la helayo loogu akhriyay oo burcad badeed ah fariin halka waxaan uga dirayaa arrinta inay ka waantoobaan hadday lacag rabaan waad aragtaan dhagaxii baa maanta lacag noqday Soomaalidu dhagaxa lacag uma aqoon maanta dhagaxii baa lacag noqday oo markabka 50,000 ah wuxuu qaadayo waa dhagaxii ay dadkeen waxba ku fali jirin inay isku tuuriyayaan waxaan ahayn ama lawaha uu ka dilo marka maanta dhagaxeeni baa macdan noqday iyadoo macdanihii kale loo tagin qaaliga aha marka waynu garan karnaa nin walba ha shaqaysto majarafadiisa ha qaato hadduu wax kale helayn dhagax ha gurto hadduu xoolo ka shaqaysanayo hadduu maxaa kalluun ka shaqaysanayo haddii uu beera ka shaqaysanayo hadduu macdan qaali ka shaqaysanayo hadduu waxyaabaha kale ganacsi ka shaqaysanayo iyo hadduu transport ka shaqaysanayo mar dhow dekedan iyo maxaa la yiraahdaa Ethiopia waxay u baahnaan doontaa gaadiid aad u fara badan oo badeecadaha waaweyn gura marka wixii aan u aadi jirnay waliba dadkeenu waa shaqaanayo shaqada darawalnimadan ku fiicnayna ama Afrika ama Sacuudiga loo aadi jiray dadkeenu baabuurta wadi jireen marka intuu qurbo baabuurkooda lahaa inuu halka yimaado oo lacag ka helo marka fursad baa muuqata laakiin fursadaas waxay u baahan tahay in la isugu tago oo hareeraha la qabto oo qof walba kaalintiisa uu qaato marka insha Allah waxaan rajaynayaa mashruucan Allah barakeeyo inuu noqdo mashruuc dalkan u aayo dadka Soomaalidu aayo geeska Afrika ay u aayaan taas muhiim ah waxay ku taalaa position aad u fiican oo runtii badda India ah badii casayn aan ka fogeyn bartamaha u ah inay isku xirto wadamo badan oo qaaradda Asia iyo Afrika iyo Europe iyo Middle East fursadda Puntland haysato runtii waa fursad haday weel tolato xataa wax kale inay ka shaqaysato uma baahnaan doonto hadii ilaahay serviceskaas ka badnaan doono sida wadamo badan ay ku nool yihiin serviceyada noocan oo kale ah population-keena marka la arko runtii duruufaha dadkeena ku nool yihiin sax ma aha uma qalmaan hantida aan leenahay iyo position-ka aan ku naalno iyo dadkeena marka hadda marayna duruufaha ka muuqdo oo noloshii bidaa'iga ahayd iyo waxyaabaha asaasiga ah la leeyahay wax isqaban kara ma aha runtii marka fariinteedu waxa weeye aqli wax soo saar ha loo jeesto wax soo saarna ma suuroobay haddaan amni xasiloonin lahayn marka waa wax isku tolan oo la rabo in laga wada shaqeeyo nin walba kaalintiisa qaata